waxaa weli ka socda magaalooyin ka tirsan gobolka Bokool oo xaalad go'doona saaran isla markaana xaalad bani'aadanimo laga sheegayay dhawaanahan waxaa ka socda dadaalo loogu gurmanayo shacabka ku nool magaalooyinkaas degmooyinka Xudur iyo Waajid oo ka tirsan gobolka Bokool ee Koonfur Galbeed waxaa soo gaaray ilaa 6 duulimaad oo gargaar raashin oo isugu jira bur, bariis, sokor iyo saliid oo 40 tan ah kadib baaqi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen shan ka mid ah 6 duulimaad waxaa ku deeqay ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Nuur Maxamed oo ah maamulaha shirkadda Daruuro halka duulimaadka kalena ku deeqday marwada madaxweynaha dalka inkastoo duulimaadyo kale oo gargaar la qorsheynayo in sidan oo kale ay gaaraan magaalooyinka Maxamed Macalin Yuusuf oo ah gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bokool iyo Cabdiraxmaan Nuur Maxamed oo ah ganacsadaha shanta duulimaadka ee gargaarka gaarsiiyay magaalooyinka Waajid iyo Xudur waxay ka hadleen gargaarka la gaarsiinayo magaalooyinka iyo sida ay tahay in qof kasta uu uga qayb qaato badbaadinta shacabka gobolka Bokool tiimkeena ee hawshan nagala shaqeeyay inaan soo gaarsiino mucaawanadan degmadan Waajid ee gobolka Bokool iyadoo soo socoto ka jawaabida baaqi madaxweynaha Abdicasiis Laftagareen ee ahaa in tabaaleysan la gaarsiiyo mucaawano ayaa waxaan hadda Ilaahayna waafajiyay inaan degmadii labaad ee Bokool soo gaarsiino mucaawanadan oo falaadkan hadda ugu horeeyo iyadoo ay si daba socon doonaan falaadyo kale oo dad muslimiin ayagana gadaasheena falaadyo kale ay keeni doonaan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto kelmadeeda ummadda Soomaaliyeed inaan ugu baaqo inay la soo gaaraan walaalahooda tabaaleysan wixii Ilaahay siiyay wax ka bixiyaan waxaan kaloo rabaa inaan sheego annaga kaliya ma aha Bokool iyo degmada Waajid iyo Xudur meel kastoo dhibaato laga sheego waxaa naga go'aan ah inaan noqon doono dadka ugu horeeya ka jawaaba taasna waxa waa Ilaahay ku mahadsan Ilaahayna waafajiyay maaha aqoonteena kartideena iyo xeeladeena ee waafajinta Ilaahay airportka degmada Waajid wayba geeka meelahan deeray deeqdi oo Koonfur Galbeed ama qaasatan gobolka Bokool baryaalkan balka wadi deeqdaas oo raashin iyo in iska jarta noocyada shal duwan iska jarta si boogaytan gobolka Bokool abaarkan wayba ka sugnaay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen baaqi u soo diri baaqi dadkii ha ku jawaabi geeka niil roogan dadkaas oo dad oo taariikh kale gobolka dad oo taariikh kale Koonfur Galbeed Soomaaliya dhan erakora may wali sabta iyo taariikhan kaleeyna waqtiga hata geeka la jara xaaladda way dareemo karo baaqaas suuga ee dadka ha ku jawaabay oo ka horeeyay maadaama ay dadkan dhibaataysan go'doonka ka jara cadowga ka hareeraysan baahageek wal ku daran ma la dareemo kortaan lanki dabshiilan shidna ama awlaadis hoos fadhi ama kor fadhi dareemo kortaan baahiyaha u dareemo kor dadkan oo la dareemo koraan baahidiyeeda ay tiyaasi degdeg ah ku jawaabeen gobolka Bokool haruntiisa Xuduraha ka bilaaween alxamdulillah geekana degmada Waajid oo qaybtii gobolka ku mid hayti degmo ku mid ah oo yaana go'doonsanaaytii hadana geeka ka bilaaween walaalkay Cabdinuur ama dadkan ka horeeyaan eedayeedan ka mahadnagaan wasiirka gaadiidka ee duulista hawada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Eelay ayaa dhawaan isagana ku dhawaaqay in garoomada diyaaradaha ee degmooyinka go'doonka uu saaran yahay si bulshada dhibaataysan loogu caawiyo ay furan yihiin sida isla dareertan gobolku gobol wiingu gobol oo geeka diyaarada ilaa 3-4 arintiis kaafi kortme Ilaahay idin jeesida wasiirka maaliyadda soo sheegay wali dareeray shaqo badan oo liiska ka furaa jidite Ilaahay idin jeey wali rajeeyay waqti dhowna gaadiid oo xamari dhulka inay hadeera magaalada Xudur insha Allah taala dawladda Koonfur Galbeedna sida madaxweynaha buu soo sheegay insha Allah taala wali jaradone wali dareertay istiraatiijiyad hoog leh oo gabi ahaan bacadowga la kala dagaalamo doona wali rajeeyay cadowgu oo aadiyo aawsho indiidi inay wal aaman inay ku adkaado rajeen
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhawaan isagoo jooga magaalada Xudur waxa uu ku baaqay in beesha caalamka iyo dowladda dhexe gargaar ay la soo gaaraan shacabka gobolka Bokool taasina waxay keentay in baaqa madaxweynaha jawaab laga bixiyay. waxaan codsanaynaa ay la soo gaaraan hay'adaha samafalka iyo deeq bixiyaalka oo dhan doonarka sida ugu dhaqsaha badan ay u soo gurmadaan sidaas oo kale dowladaha adduunyada ka jira oo dhan iyo dowladda federaalka ayadana waxaan ka codsanaynaa inay ay noo soo gurmadaan oo nagala qayb qaataan dhibaatadan bini'aadanimada oo ka taagan guud ahaan gobolka Bokool oo dhan markii gobolka Bokool la leeyahay degmada Xudur waa caasimadii haddana waxaa ku nool laba degmo oo ku jirto gacanta shabaab shacabkiisa degmada Tieglow shacabkii deganaa oo laga soo barakiciyay muddo 6 sano iyo ka badan waxay ku nool yihiin Xudur degmada Rabbuur rasaas oo kale dadkii deganaa shacabkii ayagana sidaas oo kale waxay ku nool yihiin degmada Xudur marka gobolka Bokool ceel barde iyo waajid ya ka maqan ayagana duruuftaas oo kale iyay qabaan sidaas oo kale loogu gurman doono haddii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu sheegay in maamulkiisa uu qorsheynayo in la isu furo wadooyinka go'doonsan ee gobolka Bokool si xaaladda bani'aadanimo ee gobolka ka taagan wax loogu qabto. waxyaalahan u socono on xoog saareynana waxa weeye inuu gobolka isu furmo ceel barde iyo Xudur iyo waajid in la isu furo labadii degmo kalena dib loo soo celiyo waa hawl u baahan iskaashi midnimo isgarab istaag ciidan shacab mas'uul cid kasta oo reer koonfur galbeed oo dalkan iyo dadkan ka naxaysan inay u istaagto ay tahay. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo Ilaahay uu wax siiyay inay dadkan walaalahooda ah oo nin walbaba wuxuu ugu soo gurman karo ugu soo gurmado annagana dawlad ahaan aan mas'uuliyadda ka qaadano. degmooyinka Xudur, Waajid, Qansax Dheere iyo Diinsoor oo ka kala tirsan gobolada Baa iyo Bokool ayaa ah meelaha ugu daran oo muddo go'doon ka jira iyadoo marar badan dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeedna ay sheegeen in wax laga qabanayo tii oo ilaa hadda aan lagu guuleysan. Muxuddin Xusni, barnaamijka Bandhiga Universal, Xudur, Bokool.